صونك أركان بوليه أركان تصونك والله بربنون نية هي وإمساك عن المفضرات صونك إلى نيوته أولي لهبينك آل نيوته سيدا فرائشة صونك نوو إيمان دوت هي إمساك عن المفضرات وحالله وحيكو أفرين يوردن إنا تسكئ الالس لولا الركن بوصون كليه ولا دونيا إنات إلى لسوي صوم رمضان وحكو واجبيا يجب صوم رمضان بأحد أمرين لما أمر متكمله رمضان كفو واجبا بإكمال شعبان 30 يوما أو برؤية الهلال ليلة 30 من شعبان بس شعبان رمضان ككهر رئيسه إلا كامل يالو وصدم كيدي لما يستر بسو هبين كيدا لتي شعبان بالا يقينيي ولا تريي ولا بلاوي صدم كبا دمال رمضان واجب يا مركز أما بسي رمضان هلا أركو أما يان لأركب أو رؤية الهلال ليلة 30 من شعبان هبين كبس شعبان أي صدم كتاهي هدي بس رمضان لأركو والرؤية أي سقناته أو لا يقينينا بشي رمضان وواجب يسا وبشي شعبان مركا إني سقالي اللباتن كرة ماتي أي مركا نغنيسا بشي رمضان كوبي نغنيسا واجبون نغنيا مركا إلا صوم ولقوله صلى الله عليه وسلم النبي يقول في سباء الدليل حديثك يعني حديث صحيحين النبي ليه يصوموا لرؤيته وأفضلوا لرؤيته وحاد كسونتان بشا أركتده ذا كسوما وأفضلوا لرؤيته أركتنا كأفر أو بشا شوال مركي أي يعني طلتو أو أركتده ذا أي سقناتو أفرده فإن غم عليكم هدين لا إذن كدبولو oo bishii shacbaan ee ramadaanka ka horeysay habeenkii ay soddonka ahayd ayaa cirkiba saxaaba fuulay oo markaas waxba la arki waay fa akmilu ciddata shacbaan 30 abu nabi alayhi salatu wasalaam shacbaan markaas soddonkeedii kamila marka soonku saasoo ku waajibaya in bisha shacbaan soddonkeedii la kamilo iyo habeenkii ay soddonka noqon lahayd in bisha ramadaan ay dhalato la arko soonku shuruud buu leeyahay inaad ilaaliso laga doonayo qofka saa'imka inuu ilaaliyo laga doonayo shuruudda soonka waa afar waa yani shuruud alwujub waay yani shuruud uu soonku ku waajibayo waa afarta shardi ninkii laga helo ومبصونك كو واجبيا شرطك كو بعد الإسلام هو قف وائم مسلم قف عن مسلم هين كما واجبيا صوم رمضان وحال إذا قال الله يعني فرائس إيه واجبات كم شرعك والله عقابيا هدو آخر ولا عقابيا لكن هذا كما واجبين ووجوب مطالبة لقطل بما يهدى صوما أما سلادة كذا أما زكاة بحية الأوران مايو توحيدك كوريو مع الأمرية إلى أي توحيدك قران وجوب مطالبة ملئ وصومك إيو صلاة إيو لقطل بمايو لكن علمته وحيليه آخر والله عقابيا قال لماذا عذاب كزيات سنة أيها واجبات كان شرائعنا الله عقابيا مركا قفت سنك وكو واجبيا أو لقى طلبيا وإنه إسلامي شرطي وي شرطي الله بعدنا بالغ وإنه يقفك وإنه بالغو قنقاروي ده إلمها سبقا مركو وحكا لقرتو أحد تمييز قارو صونك والله أمر يا أو يعني صون باللي هدو أو ذكر لكن واجبكما والعقل وشرط يا
shardiga saddexaad in soonku ku waajibayo waxa weeye aqli qofku waa inuu aqli leeyahay qofka majnuunka ah waalan waxba kuma waajibayaan shardiga afraad waa idaaqatu sawmi hisan aw shar'an qofku waa inuu soonka awoodo hisan waa inuu ku awoodo oo macnaha waxa loola jeedaa xisiga waa inuu ku awoodo qofku waa inuu qof xanuunsan waa inuu sanahayn ama qof waayeel ah oo tabar dhigay oo gaboobay waa inuu sanahayn labada haduu yahay soonkii ma awoodi karo oo xisiguna ku awoodi marka qofka xanuunsan xanuunkiisa ayaa la fiirinaya haddii xanuunkiisa rajo laga qabo inuu ka caafimaado waa xanuun hadda uu qabtay waxaa laga rajo laga qabaa inuu ka caafimaado xanuunkaas hadda soonku kuma waajibayo uu iska afuraya mar alla markuu caafimaado ayuu soonka soo qalaynay qadu ugu waajibayay waqti xaadirka soonku kuma waajibayo kadalika qofka musaafirka oo kala asaguna sida weeyo waa ruqsa uu iska afuri karaa markaasuu hadda soo qadaynaya suu ilaahay bayna leeyahay faman kaana minkum mariidan aw ala safarin fa'iddatun min ayaamin ukhra ninkii xanuunsan oo asagoo xanuunsan soonku u dhasho xanuunkaasna wuxuu rajo ka qabaa inuu ka caafimaado ama waa musaafir oo sarbu ku jira fa'iddatun min ayaamin ukhra waqti xaadirka soonku kuma waajibaye maalmo kale ayuu ku waajibaya mar alla markuu caafimaado ama safarka uu ka baxo ayuu soonka soo qadaynaya qofku hadduu soonka la kari la'yahay hadduu la kari la'yahay waa yeelnimo iyo duqnimo waa oday gaboobay waa duq waa yeel oo gabowday hadda gabowgan wax la rajaynayo ma aha in maaragtay waa wax qofku mar hadduu da'daa gaaro oo da'ba uu la tabar dhigo oo uu gaboobo awooddaas soo noqon maysa dee qofkaas asaga ah inuu soomo waajib kuma ahee maalin la arko wuxuu iska bixinayaa mud buu iska bixinayaa maalinkii la arkaba muxuu bixinayaa mud dacaamuu iska bixinayaa bisha 30keeda saasuu ku dhammaynaya qofkii hadduu xanuunsan yahay xanuunkiisuna waa xanuun aan laga caafimaadaynin oo dhakhaatiirtii waxay yidhaahdeen waa cudur aan bagsoosho lahayn lama rajaynayo inuu cudurkaas asagaa ka caafimaado wuu iska afuraya soon maba awoodi karee kuma waajibin maalin la arkana wuxuu iska bixinayaa mid buu iska bixinaya waa koobo oo raashina dhacaama ayuu bixinaya oo masaakiinta iyo fuqaradu siinaya qofkii soonka waa inuu xisiga u karo qofkii kari waayo waa noocaas sharcigana waa inuu ku awoodo qofku markuu soonku ku waajibayo waa inuu sharcigana u awoodo sharci ahaan waa inuu u soomi karo xagga sharciga waa inuu ku awoodo macnaheeduna waxa weeye gabadha ayaa looga jeedaaye waa inay daahir tahay oo dhiiggan xaylka la yidhaahdo iyo nifaaska umusha dhiiggeedu waa inay daahir ka tahay hadday gabadhu xaa'ido tahay oo dhiiggan xaylka la yidhaahdo uu hayo ama nufaso ay tahay oo nifaas bay qabtaay oo kollow ayay umushay nifaaska waxaa la yidhahdaa dhiigga ilmuhu markuu dhasho soo baxo riximka ka soo baxo ka soo daba dhammaado dhiigga imaadaan nifaas la yidhahdo soonku kuma waajibayo liannahu daahir ma aho xagga sharcigayna ayna ku awoodi karin soonka qado unbaa ku waajibayo mar alle markay dhiiggaa ka daahir noqoto ayay soonka soo qadaynaysaa marka shuruuddaas afarta ah ayuu soonku ku waajibayaa
شرط كم من هدي لواء وجوب كيسون كباشو كبحيا فرائد بوليه يسونك أفرا فرض كتوبادو أهرية والنية لأنه رسولك عليه الصلاة والسلام حديثك صحيحين كوحوليه إنما الأعمال بالنيات أعماش والنية بيكو أنصحيا مركا فرض كتوبادو فرائشة يعني صونك أوانيو وحا واجب نقول يسوليبو نيada soonka in habeenkii la niyoodo oo la barisiyo intuuna fajr ku dhalanin rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay man lam yubayyit an-niyya qabla al-fajr fala siyama lah fajrku intuuna dhalanin ninkaan niyoonin oo niyada aan barisiinin oo habeennimo aan niyoonin soon uma ansaxayo marka habeennimo waa inaad niyooto بلا نية هدو واجو كوبري أديكو نيونين واضح المانتي مركاسا واجي كوبري صونك النية دي سباد هالمانتي حتى مالك صونك يدو ما أنصحي إن الصوق الله يسا واجب كوكو نقول يسا مرها دا النية دي كتكتي لأنه عمل كنية الآن ما أنصحي صونك فرض كو واجب كأنا إنها بينك اللي النية دا شرط أول شدو حديث النبي نوعد إليه عليه الصلاة والسلام maalinka ayada ana waad iska afhaysanaysaa oo waxba cuni maysid ina soo qaldaysana waajib bay kugu noqonaysaa maalinka asaga waa soonka faradka laakiin soonka sunnada ah niyadiisa in la barisiyo habeenkii asagu waajib ma aha subaxii markuu waagu kuu bariyo intuu waagu bariyay wax afuriyaba hadaada samaynin soon sunnah waa iska niyoon kartaa dibna ma leh marka rugniga koobaad waa niyo oo faradka koobaad waa in yaani soonkii la niyoodo niyada ayadaana in la cayino way faradka labaad waxa weeye tacyiinu niyya niyada waa inaad cayinto oo يعني بري صون كذا أو رمضان ها نيودي إنا ترادوا تعيين بالغربة فرن كصدح الإمساك عن جميع المفطرات وألا وحي أفرنا يوردن وإن أدسك إلى لسكو أفرنا جميع النهار مفطرات وإن أدسك إلى لس وحي كو أفرنا فرن كصدحاتنا وحوي معرفة طرفي النهار يقينا بمالك آت صومتي مالك رمضان كورن إنات صومنتي وإنات يقيني سؤو يعني مالك لبدي سطرف باللو بيدي إلى قماسه مالك وإنات يقين ستو إنات يعني صومنتي فك وإنات قرنيس مالك أركان تاس أفرتا أما فرائشاس أفرتا أيو صون كليه ولا دوني إلا إلاليو هدي لغا تغانا ونصونكو أنسحين